geedigaas ku soo bilowday inaynu marka koobaad casriyeyno hannaankeena BFM-ka ama maareynta maaliyadda guud kadibna in la dhiso waxaan ku dhahdaa kaabayaashii iyo infrastructure-kii uu ku shaqaynayay hannaankeena maaliyadda guud oo SFMS-ku uu lafdhabar u ahaa oo ka farcamay xeerkii guud ee BFM-ka iyo regulationskiisii kala duwanaa isaga ka dhashay oo ugu dambeeyay xeerka hadda 2 usbuuc ka hor golaha wasiiradu ansixiyeen oo saldhig iyo faahfaahin iyo tilmaan iyo tusaalaba u ah sida loo dhaqan gelinayo casriyeynta hannaanka kharash bixinta ee dalka waxaan filayaa danabayn aad bay ugu kooban tahay macna ahaan markaynu ka hadlayno shaqada hadda digitalization waxaan filayaa laakiin wax kaloo ku habboon baynu weyno waa ta ugu habboon ugu dhow laakiin danabayntu xagga waxay naga soo gashay markii hore electricity-ga iyo cilmigii markii iskuulada la dhigan jiray la odhan jiray danabaynta ama isjiidadka awooda digitalization-ku laakiin waa ka ballaaran yahay aad buu uga ballaaran yahay marka hannaankaas technology-ga laga faa'iidaysanayo ee casriyeeyay hannaankeenii kharash bixinta ee dalka soo dhammaystiray awal hore tallaabooyin hore oo kuwan runtii ka horreeyay baa jiray oo BFM-ku dee scope-kiisu waa ballaaran yahay kharash bixin kaliya waa ka ballaaran yahay dejinta miisaaniyadda qayb ka ah fulinta miisaaniyadda oo ay soo gelayaan waxaan ku idhahdaa maamulidda kontaraagyada iyo procurement-kii iyo wixii oo dhan baa iyana soo gelaya payment processes-kii iyo kharash bixintii iyo cash management-kii ayaa ku jira waxaa iyana ku jirta oo runtii dee qayb weyn ah resource mobilization-ki iyo dakhliga sidii loo maareynayay intaba wasaaradda maaliyaddu iyo guud ahaan dawladdu shaqo badan bay ka qabatay marka geediga maanta aynu soo afmeernay wuxuu ka mid yahay hayaan ballaaran oo dawladdu ku jirto oo dhanka tiknoolajiyadda loo guurayo barnaamijkeennii dawladdu daha furtay xukuumadda dan qaran ee loo yaqaanay qorshaha isbeddelka qaranka ee NTP 4 tiiro waaweyn buu lahaa 4 tiiro waaweyn waxa weheliyay wax loo bixiyay enablers oo kuwaas inay hirgalaan lafdhabar ah waxa ka mid ah enablerskaas waxa loo yaqaano digital governance in dawladnimada oo dhan la casriyeeyo oo la danabeeyo oo la digitalize gareeyo oo la technology-adeeyo marka anagoo taa ka duulayna runtii qorshaha ballaaran ee la rabo in hay'adaha maaliyadda iyo shaqadooda lagu casriyeeyo meel fiican buu marayaa